afar ayuu rag u kala baxaa marka laga hadlaayo dhaqashada haweenka. midka koobaad waa xilawalwaal. xilawalwaal muxuu yahay? xilawalwaal wuxuu yahay waa ninka gabadhiisa u fiican oo baariga u oo u wanaagsan ay dadka dhahaan ninkaas reerkiisa baariyo u yahay ayaa la dhahaa xilawalwaal. xilihiisuu ka fikiraa, nolosheeduu ka fikiraa, wuxuu soo arko, wuxuu soo maqlo ayaduu la jecel yahay. xatee magaalada markuu maraayo shayguu isdhaho shaygan wuu qurxan yahay ama wuu fiican yahay ama waa la qaadan karaa ama dumarka ama guriga ama reerka ama ilmaha ayuu u fiican yahay oo isdhaho wuu u keenayaa. markaasuu wuxuu leeyahay tan waxay u fiican tahay xaajiyadeydii, gabadha aan qabay, reerkaygii, gurigaygii. keenana way dhahaan Soomaalida. erigiisa kaleeto keena lagu dhahaa oo guriga asoon wax wadinmaba soo galiyabo. waa nin baari ah meel walba hadii loo fiirsho ama si kasta loo qaato waa nin baari ah, waa nin wanaagsan, waa nin aan xilihiisa u darayn, waa nin hadalka gacanta afka idinka intaba ka wanaagsan. wallaahi aan la dhihi karin ninkaas waaba nin xun. wax aan ku tilmaamo ninka xilawalwaal la yiraaho aniga maba garanaayabo. dadka Soomaalida romanticna way dhahaan. Soomaalida qaar ninkaas waa romantic ay dhahaan. jaceelku wax ka yaqaana, galgaceelku wax ka yaqaana, nolosha wax ka yaqaana. intaba ragga qaar way dhahaan, dumarka way dhahaan. laakiin anigu waxaan u garanayaa xilawalwaal. waa ninka xilihiisa iyo ilmihiisa iyo gurigiisa u roon. muxuu ugu roon yahay? ninkan markii uu maanta soo arko mara qurxoon, dahab qurxoon, shay qurxoon oo isleeyahay reerkaagi iyo xaaskaagi iyo gurigaagi way u fiican yihiin wuu keenaa. gacantoo marmaba imaanayabo. maxaa la dhihi karaa ninkaas? waa nin wanaagsan. dumarow haddaa haysato oo ku qabo ha sii dayn. gabadhii guursatay maalintii koowaad iyo maalintii labaad ninka markaad ku aragto ha sii dayn. waa nin wanaagsan oo fiican oo la yiraaho wallaahi ninkaas xilihiisu u fiican yahay. gabdhaha diriska way ka masayraan. hebel suu reerkiis u yeelaa ma aragtay, hebel heblaayo wuxuu u keenaa ma aragtay, hebel suu heblaayo u jecel yahay ma aragtay. wuu jecel yahay, wuu ka dambeeyaa, waana noloshiisa. kan labaad waa xilagube. xilagube muxuu yahay? waa ninka xun oo xajaajuurka ah oo naagta ka daba guriga markuu soo galo wayba cabsanay kan maxaa ciyo keen, kan maxaa maanta soo celi, muxuu iskaga maqnaa waay, muxuu dan kale u yeelo waay isleeda. ilaan markuu guriga soo galo wayba ka naxeebo, naxdin iyo walwal iyo kurbeeba ka qaadeebo. sababtaasoo ah yacni maba ku faraxsanaba inuu guriga yimaado, maba ku faraxsana. maanta dhan wuxuu ku leeyahay haye saaka biilkan kuu dhiibo maxaa ka soo bixisay, maxaa ku gaday, haye maxaa ku soo adeegtay, adeegaas muxuu ahay, kaas wuu yiilabee, kaas saaka markaan baxayaan arkabee, kan meeshaan wuu yiilabee. maanta dhan xisaabtan iyo wuxuu kula jiraa iyo qotoqotays iyo fiirfiirin iyo wixii saaka oo uga taga guriga iyo wuxuu hadda uu ku arkay ayuu maanta dhan u qaybinaya. shilinka maanta siiyay ilaa 1000 shilin oo ugu dambeeya ee meel uga sheegto ma qojaas ma ka daynayo. maanta wuxuu leeyahay anaa og waxaas way yiileen, waxaas guriga waa ku ogay, anaa waxa micna la'aan iga qaaday, anaa igu yeelay. meel uu ku fiican yahay ma lahan. maanta dhan soo ugu qaylinay waaba stress socdaba. qof stress socdaana maba la noolaa karo. waa xilagube hadaa maqasho. shaqada xataa markuu joogo wuu qaylina. maanta dhan wuxuu leeyahay saan ma ahan, kan ma ahan. dadka dhan way naceen. xilagubaaba la yidhaha kaas. xilagube haddii la aqaan lahaay maba la guursadeenbo. gabdhow xilagube haddii la aqaan lahaay maba la guursadeen, waaba la dhinac mari lahaybo. laakiin yaa ka yaqaan shaatigii oo wiilka la wataa, surwaalkii oo kii fiicnay la wataa, magaaladii oo la maraa, markii uu kula joogo oo ama kuu sheekaynayo ama waqtigiina bilaaw yahana wuxuu kuugu sheekaynaa si baari inuu yaho kaleete. laakiin guriga markii la imaado oo xisaabtan ka bilowdo oo waxaan ku canjeerada xisaabtanka subaxii ka soo bilowdo ee cashada ku tagto oo maanta dhan ka daba juqay oo waxaan maxay ahayn, waxaan maxay saan u ahayn oo ku yiraahaa dareeme gabarey ilaahay mukugu aadiyo. aniga taasaan ka leeyahay xilagube ilaahay mukugu aadiyo. midka saddexaad waa xilkas faramaran. markaan ku leeyahay xilkas faramaran waa nin waxba aanan haysan laakiin hadduu wax helo oo ilaahay wax siiyo xilkaskii aan soo sheega la mid ah. ma fahantay gabarey? tay guursan rabto tan hadda oo qabo waa xilkas faramaran. gabarey wiilka aan waxba haysanin oo baariga ah oo romantiga ah oo jaceelka wax ka yaqaano oo maanta aad isleedahay
kan hadduu hanti heli lahay wuu ku dhaqan lahaa ama yacni wuu ku si fiican u wada noolaa laheedeen gabaray ha ka tagin gacmaha ku hayso hamoodin hantida kan haysto waa loo soo sabray adigana kan aanan haysan laakiin hadda ku wanaagsan gabaray u sabar dhaqaalayso maanta ha ku nicin wax la'aanta haddii uu ku yiraaho aniga maanta ma haysti waxaan guur ku samaysano waxaan wax ku waxaysano laakiin noloshiisa kala sheekadiisa iyo wixiisa kale aad u bagto iyo intaad la socsocotana gabaray ha ku nicin hanti oo ninkan muxuu adduunyo iiga bixin waayo geeli dahab iiga dhiibi waayo reerkayga oo adduun ugu kala waxay waay ha dhihin daruufta ha ku nicin daruufta iskaga gal berri wuxuu kuu naqanayaa nin taajira oo wanaagsan oo fiican oo noloshaada kafaara qaado oo kuu naqanaya midnaba ha uga tegin ninkaas waa xilkas faramarana la yiraahdaa xilkas faramarana wallahi gabadhii aragtay ha ka taganin tii haysay ha sii deynin waa nin baari ah waa nin wanaagsan waa nin dumarka u roon waa nin dumarka jecel waa dhaqaalayna waa wanaajina ee hadda xoolo la iskulama joogo dumarow ninkan waxba haysan biriyo helaya ha loo sabro midka afaraad waa xaal jira moog maxaa la dhahaa waa ninaan waxbaba kala ogeyn horta marka hore guursanayo waxa la leeyahay hebelaa guursada hebel kala guursada ma iska guursati markaasa gabar inta loo soo raadiyo loo keeno oo la iskaga daraaho la siiya markaasoo wasiyo u dhaqdo iyo siyo u wanaajiyo iyo siyo u dhaqaaleeyo iyo siyo u la hadlo wama yaqaano waa la maamulaa asiga dhan gabadhi saas ma soo dhaxday gabadhi waxba la mooseesay gabadhi kan mara hadii qabal iraano woo qabana day hadii iraano waa deyna waaba xaal jira moog baxaalada nolosha lagu dhaqmabo wayba ka maqan tahaybo ma fahantay waa nin remote kale loo haayo la maamulaayo meel kale laga hagaayo asiga dhan baxaalada iyo nolosha reerka iyo dhaqaalaha iyo barnaamijka meesha ka jiro iyo romantiga iyo jacaylka aan waxba ka ogeyn hadduu wax dhala nasiib leeyahay waa qalbi weyne waa qolof iska taagan waa qof aan maanta ma aqaano waxa aan ku xisaabo ama aan ku sheego sababtoo taa waa qof xaal jira moog xaal jira weyn waa qof iska qolfaf weynho waxba aanan ogeyno maanta dhinac loo xisaabay dhinac kaleba aan lahayn maxaanba ku xisaabaabo anaanba waxaan ku xisaabo lahayn dadka kalena maxay ku xisaabay rumuudkiisa meel kale laga haayaa qofkiiba markaas haysabo dhan walba ha loo haayo ama waalid ha haayo ama walaal ha haayo ama asxaab ha hayso ama ehel kale ha haayo qof uu waxa waaye la leeyahay wariyaa gabadha saas u sameey saan u yeel kan u waxay wariyaa saan reerka looma dhaqo saana loo dhaqaale leeyahay waay horta midka afraad waa meeshaas intaasaan uga baxay hadda intaan ila soo gaarteen waad mahadsantihiin waana idin salaama